warjalayaal soo dhawaada dowladda Itoobiya iyo dowladda Kenya oo si toos ah u garab istaagay lafta gareen gudoomiyihii hore ee baarlamaanka xildhibaan Mursal iyo xildhibaan Salansoor oo si kasta uu isugu dayay Xasan Sheekh in uu joojiyo ayaa si toos ah uga degay magaalada Baydhabo shir jaraa'id ayayna qabteen Baydhabo waxaa geysay diyaarad military oo ka soo qaaday Nairobi kadib keentay Mandera kadibna u soo gudbisay magaalada Baydhabo dowladda Itoobiya ayaa sidoo kale Xasan Sheekh joojisay safar uu ku tagi lahaa magaalada Addis Ababa dowladda Itoobiya ayaa sheegtay si toos ah inay lafta gareen u taageerayso Xasan Sheekhna waxa uu koonfur galbeed ugu soo duulay in ay tahay in uu saldhigyo Masar uu uga dhiso halka Itoobiya waxay sheegtay si toos ah inay dagaalka u galayso waxayna Xasan u sheegtay safar uu ku imaan lahaa magaalada Addis Ababa in uu joojiyo maanta ayuu madaxweynuhu bixi lahaa dhinaca miidiyaha waxay galiyeen madaxweynuhu awalba safar uma socon ma aragta dhalinyaro ku soo qorqorayso xaqiiqada iyo dhabta anaa ku sida jaalla muuqaalkan fagee sidoo kale ciidamada koonfur galbeed magacii horeba waa ka tageenba koonfur galbeed waa ka tageen RRA baa la yiraahdaa ila daawo muuqaalkan cajiibka waa ciidamada koonfur galbeed oo ku dhawaaqayo in ay yihiin RRA waxa duulaanka ku ahna in ay yihiin jamhad USC la yiraahdo waa ciidankii koonfur galbeed ee shala tababarka loo soo xiray muuqaalkan waa cajiib si degan u daawo muuqaalkan waa viral baraha bulshada si weyn ayuu ugu faafay waa ciidamo koonfur galbeed oo tababar qaadanayo oo isku wacyi gelinayo in dalkooda ay difaacdaan deegaankoodana ay u dhintaan inayna yihiin RRA jamhaduna ku soo duushay hadda shaatigii maamul goboleed waa lafta gareen halkaas oo dhigta kii jamhadu xirta xasanna wuxuu leeyahay war dowladda ay soo weerareen kii jamhada xiro ayuu leeyahay arrinta cajiibka maantay mar kale Xasan qalbi jab iyo niyad jab iyo marooro dilaac ayaa u soo hoyday waxa la ii sheegay inuu qol ku xiran yahay madaxweynaha xaalkiisa caafimaad baa laga dayrinaya maantay laba jab ayaa Xasan ku dhacay nimankii ilaa shala Nairobi joogay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Mursal saddexda sawir nimanka aragtaan sawiradooda intii la socotay baa la socotay intii kalena anaa u sheegayo waa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ninkii aadan madoobe bedelay ninkaas iyo mid kamid ah xildhibaan laba kamid ah xildhibaanada xildhibaan Salansoor aadan Salansoor nin la yiraahdo saameyn badan ku leh magaalada Baydhabo reera adagna ka soo jeeda xildhibaan Xasan Cabdinuur nin saameyn badan ku leh dhinaca koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo reerkiisuna aad u degan yahay horeyna ugu tartamay gudoomiyaha waa ninkii aadan madoobe la tartamay oo xilka ka qaaday inta marka laga yimaado labadaas nin iyo mas'uuliyiin kale ayaa Nairobi joogay waana dhowrkii qof oo loo xayirnaa in guddiga doorashada lagu dhawaaqo doorashadii iyo arrimihii koonfur galbeed in la guda galay nimankii la sugayay way xala Xasan ma siixan sirdoonka Kenya la hada sirdoonka la hadal Itoobiya la hada xala asaga iyo Axmed Madoobe laba telefoon bay kala rakabteen Axmed Madoobe wuxuu leeyahay waa in diyaarad Kenya haddaad aniga ii hiilinaysaan oo aad aniga ii garab taagan tihiin lafta gareen garab taaga dagaalka Baydhabo ku socda wuxuu la macno yahay mid Kismaayo lagu soo qaaday haddii aad Kismaayo difaaci lahaydeen Baydhabana difaaca ayuu yiri xalay Kenya gudaheeda waxaa ku dagaalamay Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh balse Axmed Madoobe ayaa ku adkaaday waxaana la soo gabagabeeyay oo xiriir toos ah uu dhex maray oo laga soo dhameeyay dowladda Kenya iyo dowladda iyo maamul goboleedka koonfur galbeed in la isku xiro waa la isku xiray saaka marka diyaarad military oo uu saaran yahay diyaaradaha xataa wax duqeeya ee militariga Kenya ayaa soo qaaday Nairobi ka soo qaaday waxay keentay deegaankan la yiraahdo Mandera ayay keentay Mandera ayaa niman kale oo dhinacan Itoobiya ka soo galay Itoobiya u geysay
halkaa kadibna diyaarad Kenya ay leedahay oo diyaaradaha militariga ah ayaa halkaa laga soo saaray waxayna ka soo degeen magaalada Baydhabo xasan arintaasu waxay ku noqotay arin aad u culus waxay keentay inuu ka quusto koonfur galbeed waxay keentay in dadaalkiisii uu yareeyo niyad jab weyn iyo jab weyn ayaa ka soo gaaray dadaaladii uu ku bixinayay joojinta safarka xildhibaanada uu hogaaminayo ninka la yiraahdo xildhibaan mursal gudoomiye mursal nimanku uu hogaaminayo midna ku bishaarayso mursal waa shakhsiga la tartamayo lafta gareen waana mucaaradkii koonfur galbeedba hadda mucaaradkii koonfur galbeed baa lafta gareen la saftay arintii qabiil bay isku bedeshay waxay taagan yihiin war anagu aaraareebaan war idinkuna iyo isiibaatiin war dhul baad raadinaysaa war shabeellada hoosaad u socotaan xaaladdu waa karkar meel adag ayay isla gaadhay xasan halkaa waa ku jaba ma iga haysaa hoosta ka xariiq warkaan fagee xogtaan kalena waxaan idinka codsanayaa xogtaan in aad fageysaan ood weliba meel kasta aad dhigtaan oo cid walba aad u didhaan waa xog dhab ah weeye warbaahinta Soomaalidu ma oga dad fara badan baan ogeyn xogtaan waxaa weeye ilaa xala waxaanu baahinaynay warbaahintuna ay baahinaysay xataa madaxtooyada ciidanka lagu wargeliyay oo xataa wasaaradaha loo sheeg in xasan uu safar u yahay dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa sababta uu tagayana in ay tahay in Itoobiya ay kala shaqayso duulaanka magaalada Baydhabo lagu qaadayo arintaas safarka xataa diyaaradii waa taagnay in uu baxo saaka inuu baxo ayuu qorshuhu ahaa diyaaradiisii wixiis waa diyaarsaday in uu baxo marka uu dabcay oo uu garoonka galo ayaa telefoon ku soo dhac xogtan waa xaqiiqo biyo kama dhibcaan weey Itoobiya waxay si toos ah ugu cadaysay waliba markii hore asaga xiriir dalbaday oo wuxuu ka baqay nimankaas Kenya ay wado oo mandheera keentay in Itoobiya loo gudbiyo oo Itoobiya diyaarad kale ku keento fariin buu u diray wuxuu yiri nimayow markii hore lafta gareen adinka meeshii geeyay laba dawladood oo jaarana waan inaan isla shaqeyno oo ninkaas aad ila qabataana waa idinku codsada haddana asagii baad rabtaan inaad weli keentaan waa isku imaanaynaa arintaasna ila dhameey waxa lagu yiri safarkaaga baaji waxaana ku cadaynaynaa waxaad nagala hadlaysay Soomaha lafta gareen iyo arrimaha koonfur galbeed haddaan cid la jirnay dhaheen lafta gareen baan la jirnaa waliba dagaal hadduu bilowdo si toos aan u gelaynaa bay dhaheen si toos ah ayaan u gelaynaa waa ognahay bay dhaheen xasanow qandaraas baad ka soo qaadatay masaarida hubka la rarayo ee garoonka aadan cadda laga raray la geeyay meesha la yiraahdo burha kaba la geeyay oo la rabo in Baydhabo lagu weeraro waa hubkii Masar ayay dhaheen waxaad deegaanada rabtaa inaad u qabsatidna waa inaad masaarida saldhigyo ooga samaysid arintaa kaama aqbalayna waana ka diriraynaa bay dheh qorshahaagana waa fahansan koonfur galbeed baana si cad oo la jirnaa safarkaagana waad baajinaysaa nooma imaanaysid ayay dhaheen arintaas waxay noqotay jab kale oo uu xasan 24 saac ugu dambeeyay uu wajhay jab waa kii raggii uu celinayay oo geed dheer iyo geed gaabanba uu u fuulay in diyaarad military ay qaado ay Baydhabo geyso hawadii Soomaaliya uu lahaa waxbaan ka celiyaana inay jilicday baa u xaqiiqowday dhinaca kale Itoobiya safarkiisii way baajisay nooma imaanaysid bay dhaheen yaa annaga nooma imaanaysid haddii aad iska imaanaysid magaalada Addis Ababa hadda waa xaruntii Afrika weey waa imaan kadha danahaaga waa u imaan kadha laakiin Itoobiya martina uma tihid umana timaadid haddaad timaadidna kaalama hadlayno arrinta koonfur galbeed kaalama hadlayno waana lama taabtaan ayay dhaheen qorshahaagana waa fahansannahay haddaan cid u hilinayna nimankaasaan la jirnaa arrintaa niyad jab iyo xanuun bay ku noqoto ra'iisul wasaarihii Soomaaliya maanta u imaanaya oo uu garoonka ka soo degaya hadda waxaa la ii sheegay inuu la shirsan yahay ninkii Hirshabeelle haystay oo Abgaal oo la oran jiray Guudlaawe la shirsan yahay xalana
warkaygii hore waa aniga idiin sheegay wax badan baan ogahay waxaan idin yiri isbuuca soo socda oo caawa laga bilaabayo wax badan baa isbedelayaan rag badan ayaa kala tegay jab ka xoogan midkan koonfur galbeed ka haysta ayaana xasan ku dhacaya ma idin ninkii odawaa la dhahay waa baxsaday oo xisbigii lifti uu ka qaata sidoo kale taliyihii hore oo nabad sugidda Sambalooshe asna lifti buu ka qaata waa mucaaradka Xasan Sheekh ra'iisul wasaaraha laftirkiisa waa laga shakisay hadda waxa la leeyahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo ninka la yiraahdo iyo lafta gareen iyo mahad salaad mar waxaa jirta ay xaramka isugu tageen marka qorshe la degay in la istaageero odagaana la tarantureeyo ayaa lagu heshiiyay balay marka waxa la yiri god walaalaha qodi haddaad qodidna ha dheerayn xasan cuqubadii dadka masaakiinta ee la barakicinayay ee dhibaatada aragtay loo geystay meel la'aan wallahi ma dhacayso meel la'aan ma dhacayso waxaan san rabaa inaan idiin sheego ninka la yiraahdo Axmed Madoobe oo madaxweynaha Jubbaland ka iyo ninka la yiraahdo Siciid Dani ee madaxweynaha Puntland ka labadaas nin reer koonfur galbeed meel wanaagsan ha ku qortaan labadaas nin waa labadan nin oo ay koonfur galbeed ka dhiman laadahay si weyn ayay u garab taagan yihiin lafta gareen ninna Itoobiya ayuu soo xiray oo wuxuu leeyahay dhanna oogama bayrtaan hal garab istaago ninna Kiyo ayuu soo xiray oo dhanna wuxuu leeyahay hal garab istaago diyaaradii iqaadi lahayd asaga ha qaaduu leeyahay nimankaas si weyn bay u garab istaageen nimankii mas'uuliyiinta ee la sugayeen way yimaadeen saacadaha soo socda marka waa saacadaha soo socda saacadaha soo socda marka guddigii doorashada lagu dhawaaqaya xaaladuna waa dhammaan doontaa bahashaana dhinaca koonfur galbeed ayay u badan doontaa waana la guuleysanaya geesinimadu marka waa in yar cagaha lagu hayo xasanna waa laga adkaaday ciidankii koonfur galbeedna muuqaalka hadda daawateen waa ciidamadii koonfur galbeed waxay leeyihiin areebaan dalka yaga waa difaacaynaa bay leeyihiin deegaanadan difaacanaynaa bay leeyihiin cidna uma joojinayno waxaa iska dhicinaynaa bay hadda xataa wasaaradii ishaag ninkii warfaafinta u qaabilsanaa lafta gareen oo yaanti dhawt la magacaabi jiray ayaa goordhow hadlayay wuxuu yiri duulaan waxa lagu yahay shabeellada hoose dhul ballaarsi baa la raadinaya lafta gareen lama diriirsana lafta gareenna duulaan laguma aha in la kala furfuro gobolkaas la raadinaya waa sanaqaanaa buu yiriyo la yeeli maayo